gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa xalay kormeeray howlgal ay ciidamada amnigu ay ku soo bandhigeen maandooriye iyo dadkii ka ganacsanayay kadib howlgal laga fuliyay degmada Kaaraan. Goobta lagu soo bandhigay maandooriyahan waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Axmed Diiriye Yabo, taliyaha guud ee qaybta gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed gaashaanle sare Macalin Mahdi, maamulka degmada Kaaraan iyo saraakiil kale. Duqa magaalada Muqdisho mudane Madaale ayaa ku bogaadiyay ciidanka amniga sida ay had iyo jeer ay ugu taagan yihiin ka hortagga waxyaabaha halista ku ah xasiloonida caasimadda iyo mustaqbalka ummadeena, isaga oo sidoo kale ugu digay cid kasta oo ku howlan isticmaalka iyo ka ganacsiga maandooriyaha in sharciga lala tiigsan doono. laakiin sidii targetka ay noogu ahayd ayay target u ahaa doontaa markasta mukhadaraadka iyo maaragtay waxyaalaha maanka dooriya. marka waxaan rabnaa bulshada gobolka Banaadir meel kasta oo ay ku arkaan waxaas maanka dooriya inay la soo wadaagaan hay'adaha ammaanka, inay la soo wadaagaan maamulka degmada iyo maamulka degmooyinka inay la soo wadaagaan. waxaan uga mahad celinaynaa si gooniya ciidamada ka howlgalay oo shaqadan maaragtay gaar ahaan qaybta bari ciidamada ka howlgala aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa. waxaan rabnaa dadka ka ganacsada waxaan, dadka isticmaala, dadka maaragtay beerta intaba inaan uga digno inay isku dayaan in gobolka Banaadir ay waxaan maaragtay uga ganacsadaan ama ay soo galiyaan. waa la dagaali doonaa qofkii lagu qabta asagoo wada, qofkii lagu qabta asagoo maaragtay ka ganacsanaya iyo qofkii lagu qabta asagoo isticmaalaya intaba si khaas ah ula dagaali doonaa. marka aad iyo aad u mahad